بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan in halkan ka salaamo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood oo martigelisay dagaalo qadhaadh iyo duqeyn ay la beegsanayaan ciidamada Soomaaliland. madaxweyne Shariif ayaa sheegay inay Soomaali oo idil ay andar weyn u tahay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo gaadhay maalintii 12aad iyadoo colaaddu ay sii xoogaysanayso welina aysan muuqan ifafaala nabadeed. waxaana sii lama laabmaya dhimashada dhaawaca barakaca iyo burburka hantiyadeed ee soo gaadhaya dadka aan waxba galabsan. haddaba annagoo gudanayna waajibaadka naga saaran joojinta iyo xakamaynta dhiigga ummadda Soomaaliyeed ayaa mar kale ugu baaqaya joojinta dagaalka ka socda magaalada Laascaanood si shuruud la'aan ah. waxaan xusuusinayaa dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamkaba casharka ugu muhiimsan ee laga faa'iiday dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay inay ahaayeen inaan beel kale xoog ku muqoonin karin awood ciidanna aan lagu gaari karin ujeeddo siyaasadeed ayuu yiri Sheekh Shariif. wuxuu isagoo hadalkiisa sii wata raaciyay looma dulqaadan karo daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed. waxa ka socda magaalada Laascaanood waxaa lagu sifayn karaa dambiye ka dhan ah bini'aadanimada xadgudubna ku ah mucaahadaadka iyo xeerarka caalamiga ah. duulaanka socda waxaa laga dhaxlaa oo qura dhimasho, dhaawac, nacayb iyo weli abtigii inay isnacaan, colaad mahadha ah iyo burbur hantiyadeed. haddaba si loo daba qabto masiibada ka taagan magaalada Laascaanood waxa uu madaxweyne Sheekh Shariif ku baaqay qodobadan: in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo joojiyo xabadda, in ciidamada laga dulqaado magaalada Laascaanood, in isimada, culimada iyo waxgaradka labada beelood ay kulan degdeg ah isugu yimaadaan, in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay adeegsato culays siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed si nabad waarta loogu soo dabaali lahaa colaadan oo daba dheeraatay. ugu dambeyn, madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa bogaadiyey dadaalada beesha caalamka ee ku wajahan deminta colaadda ka aloosan magaalada Laascaanood. haddana waxa uu ku baaqay in tallaabo sharci ah laga qaado cidda hurinaysa colaadda Laascaanood iyadoo la adeegsanayo qawaaniinta caalamiga ah.